Isbitaal qadiimiya oo ku yaala West Java ayaa xilligii fiidka ahayd waxaa markaasi howlweyga cidlada soconayay wiil kalkaaliye ah. Wuxuu marwalba shaqayn jiray xilliyada habeenka isagoo markaasi taasi u sabab tahay degnaanta. Wuxuuna markaasi awooday inuu cuntada iyo daawooyinka u geeyo bukaanka isagoo aysan dhibin shaqaalaha ka sareeya. Habeenkan waxaa bukaanka uu ku qornaa markaasi ku jiray haweeney aad u daaweyn taasoo markaasi lagu sheegay inay kansar qabto. Markii uu soo galay wuxuu arkay sariirteeda iyadoo ag fadhido haweeney dhalinyaro taasoo la hadlaysay oo markaasna la qoslaysay. Waan ku salaamay Marwo, dawooyinkan oo dhan waa inaad cuntaa ayuu dhahay. Kadibna gabadhii ayaa kor u fiirisay iyadoo markaasi u mahadcelinaysa. dhowr habeen kadib kalkaaliyihii dhalinyarada ahaa wuxuu aaday dhinaca bari ee isbitaalka. Xagaasoo uu ku arkay oday cajuus ah oo lagu sheegay inuu qabo xanuunka sambabada. Mar kale ayuu aad ula yaabay markii uu arkay haweeneydii dhalinyarada ahayd oo odagaana la fadhida taasoo la sheekaysanaysa lana qoslaysa. Waan ku salaamay mudane, waa tana cuntadaadii, isku day inta awooddaada in aad dhamaysatid ayuu ku dhahay. Odaygii iyo haweeneydii ayaa soo eegay kadibna way u mahadceliyeen ninkii kalkaaliyaha ahaa. Kalkaaliyihii markii uu qolka soo baxay wuxuu dareemay murugo saa'id maadaama haweeneyda dhalinyarada ee laba ka mid ah qaraabadeedii isbitaalka ay ku xanuunsan yaalaan. Subaxdii xigtay markii uu dawo u geynayay gabar yar oo markaasi kansar qabtay ayuu wuxuu arkay inay la joogto isla haweeneydii markaasi iyadoo la hadlayso lana qoslayso. Markaa kadib kalkaaliyihii wuxuu isweydiiyey siday macquul ku tahay in haweeneydan qaar ka mid oo aad u badan oo qaraabadeeda ay isbitaalka dhammaantood ku wada xanuunsan yihiin. Maalinka markii isii dhammaan rabtay oo uu shaqadii ka soo baxay ayuu wuxuu arkay haweeneydii oo markaasi ku fadhido kuraasta howlweyga mid ka mid ah. Xoogaa kadib agteeda ayuu soo fariistay asagoo markaasi rajeynaya inuu sheeko la bilaabo. Waan ku salaamay Marwo, waxaan isweydiinayay dhammaan dadka aan kugu arkay qaraabadaada miyaa? Way soo fiirisay kadibna waxay ugu jawaabtay haa, dhammaantood waa qaraabadayda. Kadibna wuxuu dhahay iga raali noqo inay dhammaantood wada xanuunsan yihiin. haa ayay dhahday, waa sababta aan u imaado si aan qalbiyadooda u qaboojiyo. Markay intaa u sheegtay wuxuu isiri waa arrin aad u wanaagsan. Kadibna way sii sheekaysteen ayagoo markaasi qoslaya oo wada dhoola cadeynaya ilaa laga gaaray xilligii uu weydiiyey. Marwo, maxaad kala hadlaysa qaraabadaada? Dhammaantood waxay u ekaayeen kuwo faraxsan oo aad u degan. Waxay u egtahay in aad qof walba farxad gelin kartid. waa run ayay dhahday, aniga ay waajib ku tahay inaan qalbiyada u dejiyo, dareensiiyana in xanuunkooda mar aad u dhow uu dhammaan doono sababtoo ah waqtigooda uu yar yahay. meel kale ayaana ku kulmi doonaa, laakiin dhankooda waxaan dareemayaa naxariis aad u fara badan. intaa markii ay tiri ninkii kalkaaliyaha aad ayuu u yaabay. Kadibna wuxuu weydiiyey maxaa ka wadaa mar dhow ayuu dhammaan doonaa? way soo eegtay kadibna waxay tiri waxaan ka hadlayo mar dhow ayaad arki doontaa. xagaas ayuu sii fadhiyey isagoo aad u fajacsan. Kadibna way salaantay waxayna tiri iga raali noqo, waa inaan tagaa xilli dambe ayay noqon rabtaa, waxaana isugaya qaraabo badan oo aan rabo inaan u tago. isagoo aad u naxsan oo hadalkii ka soo bixi laayahay ayuu ugu dambeyn wuxuu dhahaye habeen wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa. haweeneydii dhalinyarada ahayd way istaagtay, isla markay sii jeesatayna wuxuu arkay in madaxeedu ku yaalo dhaawac aad iyo aad u weyn. Kadibna way soo jeesatay waxayna farta ku taagtay kalkaaliyihii. Kadibna waxay ku tiri adigana waqtigaaga mar dhow ayuu dhammaan doonaa.